بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كسات كسوغنتين با ربي هيدن كو حفظو هيدن كو إلاليو. برنامجka kan iyo muuqaalkan qisada aan idinku sido waa mid aad iyo aad qariib ah, la yaab waliba dhaafay. Hase ahaatee waa mid xaqiiqi ah oo dhacday, kuna tusaysa awoodda Ilaahay iyo xumaan kastoo aad isku dayday inaad samaysid in Ilaahay amarkiisa uu ka sareeyo. Qisa la yaab leh waa nin dhalinyaro ah, wuxuu jeclaaday gabadh. Hase ahaatee gabadhaas ayadu dan kama gelin. Jacaylkeeda iyo inuu xumaan uga faa'iideysto ayaa madax maray. xumaan kasta ayuu isku dayay si ayadoo gacanta ugu dhigo hase ahaatee waa kari waayay. Marka ay geeriyootay ayuu qabrigeedii tagay, qabrigu ka soo saaray asagoo raba faaxishiisina inuu ku sameeyo si Ilaahay u galay. Subxaanaka yaa Rabbi. Hasadaan dhageyso bilow ilaa dhamaadka waad ku cibro qaadan doontaa biidhnillah. waana xaqiiqo jirta oo dhacday. ninkaas saaxiibkiis ayaa sheekh lagu kalsoon yahay uga sheekeeyay. dhacdaduna waa dhacdo macruufa oo muslimiin badan gaartay la og yahayna. qisadan marka waxay ka mid tahay qisooyinka la yaab kale. xaqiiqatan waa mid dhacday oo run ah. hasadani waxa weeye waa wiil dhalinyaro ah. waxa caajibisay oo ka helay oo jeclaaday gabadh. hase ahaatee gabadha tan jacaylkiisaas iyo usoo bandhigiisaas wax dareen ay ka qaaday ma jirto. dhagna jalaq ooma siin. sababtu waxa weeye wiilkan waa mid la yaqaan, xaafadana waa wada degan yihiin. dhaqankiisu dhaqan fiican ma ahan. isku dayo badan buu sameeyay. gabadhu waa mid dhalinyaro ah. hase ahaatee markii dambe wuu soo doonay, way diiday oo ehelkeediina waa diiday. sababtu waxa weeye oo ay u diideen dhaqan wanaagsan ma lahan. waa wiil daraagiska isticmaala, khayr badanna aan samayn. mukhadaraadka iyo khamrada iyo waxyaalaha noocaasa ayuu caadaystay. markii loo diiday oo ay diiday wuxuu go'aansaday gabadhaas inuu ka sinaysto. in badanna wuu u qurxiyay, wuu u wacay, taleefankeedu soo helay, waa wacaa, wuu ballaminayaa, wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo. hase ahaatee ayadu waa diidaysa. sababtu waxa weeye waxay ahayd gabar wanaagsan oo laazimaysa ilaalada nafteeda. hase ahaatee weli ma quusan kan. wuxuu daba socdaa rabitaankiisa inuu raali geliyo, walow macsiyo xumaanba ha ku raali geliye. dadka qisadan ay ka kooban tahay waa aabihii gabadha iyo wiilka kan. xagga ay ku dhamaatay, xaggeeysa ku dambaysa arrinta tan. qisadan wuxuu la waashay wiilka kan jacaylka gabadhaas heer uu Ilaahay jacaylkiisa ka sara marsiiyay. subxaanaka yaa Rabbi. marka isku dayadiisa kala duwanaa ay ku dhammaadeen fashil iyo in reerkii ay diidaan, gabadhiina ay diidaan inay wiilka kan siiyaan, akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisoo xun daraadood, wiilka kan ma iloobin. wuxuuna go'aansaday inuu sii siyaadiyo daraagis cunidda iyo sidoo gabadhaasi ku heli lahaa. muhiimaddu waxa weeye qadarta Ilaahay waxay doontay in gabadhaasi ay geeriyooto. arrintaas waxay ku noqotay reerkii gabadhaas iyo dadkii xaafadda iyo inta taqaanay asxaabtii arrin ku soo boodaa oo aan la filanayn, lagana yaabay. hase ahaatee wiilka kan asagu taasi maahan, waa u farxayba. meeshay dadkeedii iyo asxaabtii iyo eheladii u murugoonayaan asagu waa faraxsan yahay. wuxuuna aaminay geerida gabadhan inay tahay hadiyad Ilaahay u soo diray, una samayn doono wax uusan intay noolayd uusan samayn. nin saaxiibkiisu la hadlay. gabadha waqtigii maalintii la aasayay ee la sogotinayay ayay israaceen oo dadkii bay ka mid noqdeen. isagu waa faraxsan yahay, dadku waa murugaysan yihiin. kaana maxamed inuu leeyahay Ilaahay idinka abaalmariyo, hadiyadaad ii sidaan meel cilaa ii geyn doontaan. yaa subxaanallah. markii la soo aasay lagu soo kala tagay, shaydaankiisa u waxyooday. wuxuuna markaasi ka fakeray fursado badan oo uu sameynayo. galabtii markii la gaaro qorraxdu dhacday, saaxiibkiis buu u yeeray. inay keen buu yiri, xageed noo wadaa buu yiri. wuxuu yiri arrin baan rabaa in aad ila soo samayso ama ii raacdid, ii weheshid nakeen qabrigii gabadhii aadee. ujeedkiisu waxa weeye waa daraagaysan yahay. haddana qabriga intuu gabadha ka soo saaro wixii uu rajaynayay inta ay noolayd inuu la sameeyo xumaana inuu markaas sameeyo. qisadu waxay leedahay aabihii gabadha dhalay habeenkii waa iska seexday.
dadkii u tacsiinaya imaanayayna wuu ka cududaartay maadaamuu daalan yahay oo murugaysan yahay. intuu hurday gabadhiisii baa riyo ugu timid oo dhahaysa aabbo iga soo gaar iga soo gaar iga soo gaar. aabbihii hurdadii buu ka soo booday isagoo argagaxsan. xogaa wuu cudubilaystay, qur-aan buu akhriyey, hurdadiisii buu ku laabtay. arrinkaana wax weyn uma arag. wuxuu dhahay midhaa qalbigaadan murugaysan iyo faaruqa gabadhaana ay ku faaruqday ayaa riyooyinka keenaye hurdadaada iska wado. mar labaad bay ku soo noqotay. markaasuu yaab wuxuu yiri gabadhayda ma la cadaabaya subxaan allah, gabar wanaagsanna waa ahayd. markaasuu usoo wajahaystay xaggaas ee qabriga. layaabku wuxuu ahaa markuu qabriga gabadhiisa imaaday, qabrigii waa furan yahay, meydkii ama gabadhii kuma jirto. subxaanaka yaa rabbi. dhinaca midig iyo dhinaca bidix meel kastuu fiiriyey wuu yaabay. kadibna wuxuu arkay meel aan ka fogeyn qabriga iftiin yar oo ka baxaya. ninka kan saaxiibkii soo raacay waa yaaban yahay, wuxuuna la yaaban yahay wiilka kan saaxiibkiisa wuxuu samaynayo. khiyaali inuu ku jiro moodaya iyo wax riyo ah, xaqiiqaba inay tahay ma garanayo. meel halkaas iska fadhiya. hase ahaatee kani gabadhii meydkaa uu qaatay meel halkaana oo duqoosho ama meel jajabtay oo kale qubuurta u dhow ayuu la galay. subxaanaka yaa rabbi. meydkii aabbihii iftiinka halkaa ka baxayuu arkay. iftiinkii xaggiisuu aaday. wuxuu dul istaagay wiilkii oo isku dayaya ama bilaabayaba furidda kafantii gabadha tan ku xirnayd. kadib wuu ku booday, dhab buu siiyey. qisadu siday leedahay weeye warinteedan. kadibna wuxuu la xiriiray booliskii ama ciidankii. isla markiiba waa la qabtay, waa la xiray, waana la kaxiyay xabsiga loo taxaabay. ilaahay jalla jalaaluhu ayaa difaacay. kadibna aabi wuxuu guda galay sida warintan ay tilmaamayso in uu kafno qabrigeediina uu ku celiyo. wiilkiina la qabtay, maxkamadna loo diray. yaa subxaan allah. waxa uu rajeynayay ficilkii xumaa ee intay nooleyd ka diidaysay dhimashadeedii inuu ku sameeyo. warinta qaar ee la wariyay qisadatan iyadoo asal ahaan jirta xaqiiqatan waxay tilmaamaysaa wiilka kan malakul mawdka inuu geerida ugu timidba meeshii qabriga. oo wiilka saaxiibkiisa asagoo yaaban oo uu celcelinayo ayuu muddo ola soo baxay. saaxiibkiis markuu damcay inuu celceliyo muwaalan tahay, waxaan wax la sameeyay maan caqliga ma ka tagay, ayuu wuxuu iga fogow. muddo watay la soo baxay. muddadaana kugu jarjaraa wiil haddaad iga fogaan. wiilka saaxiibkiisa intuu yaabay ayuu gadaal u baxay, halkaas iska tagay isagoo murugaysan, argagaxsan. meeshaan maxaa ku keenay leh? wuxuu arkay qabrigii uu qufayo, cariisoo dhawow oo soo bixiyay. markuu damcayba kafanta inuu ka furo, warinta kale waxay tilmaamaysaa in ilaahay ku tuuray malakul mawd, bartiiba ku dhintay. subxaanaka yaa rabbi. ilaahay baa difaacay. khaatumada xun buu ku geeriyooday isagoo meydka kan xumaan ku fali raba, ku samayn raba ayaa ilaahay ka qabtay. labadaas warin bay tilmaamaysaa, laakiin asliyan waa qiso dhacday oo run ah oo xaqiiqo ah oo saaxiibkii la joogay wiilka kan xaaladda markii qabsanaysa uu sameynayay ayaa ka waramay oo sheegay. hase ahaatee si kastoy noqotaba maxaynu ka faa'iideynaa qisada noocaana? qisada noocaana iyadoo khiyaali ahayn ama wax dadka ay jecel yihiin oo raadinayaan aysan noqon oo ah mid dhacday, ayaynu waxay ka faa'iideynaa biidni illaahi ilaahay dadka uu jecel yahay ayaguna alla jecel sidoo u difaacayo xitaa geeridooda kadib ayaynu arkaynaa. markaad ilaahay jeclaatid, amarkiisana ilaalisid, isxifdidid, ilaahay asagaa geeridaadana xitaa ku ilaalinaya. qofka ka xifdiya shahawaadka iyo xumaanta naftiisa inuu ku rido, ilaahay baa xifdinaya oo ka ilaalinaya in arintaasoo kale ku dhacdo xataa geerida kadib. sida gabadhan tan lala damacsanaa ee wiilka kan ee u wareeray jacaylkeeda, laakiin aan nala eegin oo aan lala falgelin oo la diiday. kadib markii uu doonay loo diiday ayuu wuxuu go'aansaday in uu mar shirkeeda qabto, maruu balansiyo oo waco ay ka diido. si kastoo isku dayo waa diiday, laana ilaahay mid ka cabsanaysa oo dhowrsan. ومع ذلك iyadoo yar hadan daadeedu waa yarta, hasaata ilaahay baa ilaaliyay. sababtu waxa weeye wado ilaahay ku ilaaliyo ayay markii hore samaysatay. marka ciilka muusadeyn xitaa geerideeda kadib wuxuu damcay inuu god ka soo saaro xumaanta ku sameeyo. allah ka difaacay marka. ama malakul mawdka adduunka loo keeno xabsiga la geeyo, ama malakul mawdka aakhiro u kaxaynayo naftu meesha uga baxdo. saaxiibkiisu wuxuu yiri meeshii argagax baa igu qabsaday iyo naxdin, meel aan tilaabo u qaadan garan waaye. aniga dhanba miirkii iga tagay, waa suuxay ilaa habeenbarkii saqda dhexe la gaaray buu yiri. subxaanaka yaa rabbi. ilaahay waa difaacaya mu'miniintiisa si xaq ah u rumaysay
rag iyo dumar nooc kasta yihiin, haddaad asturkaada noloshaada xifdisid, xumaanta iyo rabitaankeeda iyo shahwada iyo waxa loo soo bandhigaya ka xifdisid, ilaahay baan ku dhaartay rabbi waa ku difaacaya mar walba, wuuna ku ilaalinayaa. cid xumaan kugu samaynaysa xitaa qabrigaada markaad gashid ma jirayso biidni illaahi. aad iyo aad baad umahadsantihiin. baaraka allahu fiikum. ilaahay shar walba iyo nasqiisa iyo xumaantiisa haynaga wada saaro.